السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti waxaan wanaagsan idin lahaantiinba soo dhawaada waa cashirkeenii labaad ee aan ku baran doono Adobe Illustrator 2023 okay cashirkeena labaad caawa waxaan ku baran doonaa 8 qodob 8daas oo qodob oo ka kooban menu control panel tabs tools binaries canvas artboard navigation bar 8 qodob ayaan mid u dul istaagi doonaa anagoo weliba si faahfaahsan aan uga hadli doono insha Allah. Qaybta ugu horeysa aan ka bilaabi doono waa qaybtan kore ee waxaa la yiraahdaa menu ayaa la yiraahdaa. Qaybtan kore inta kasoo bilow ilaa intaan waxaa la isku dhahaa menu. Menuga muxuu qabtaa isaguna? Menu wuxuu qabtaa waxyaabihii inta ka maqan ayaa inta laga raadiyaa. Tusaale oo kale hadda oo kale waxaa noo dooran oo kale control aan noo dooran ama waxyaabo kale inta noo dooran haddii aan muuska dhaqdhaqaajino. Tusaale oo kale property oo kale hadda fiiri tigaa saaran sooma tig haddii aan ka qaado waa ujeedaa meesha property uu ka baxay dhinacan waa ujeedin sooma property uu ka baxay. Haddii aan ku laabto windowga oo kale aan soo raadiyo property haddaan soo raadiyo aan keeno dhinacaas ayuu soo darsami doonaa property aan raadino okay waa kana property tig haddaan saaro waa ujeedaa meesha ayuu kusoo laabtay. sidaa darteed marka qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa menu ayaa la yiraahdaa. waxyaabo badan way ku jiraan waxyaabaha hadda tusaalooyinka nooga mid waxaa kamid ah inaan file lahno oo kale file oo kale ama document oo kale markaa sameynayno oo kale inaan inta kasoo dooran iyo markaa wax seefeyno oo kale inta in laga seefo. qaybtaas koowaad waxaan isla fahnay in la yiraahdo menu in la yiraahdo. qaybta xigta waxaa la yiraahdaa iyaduna control panelka isaguna wuxuu qabtaa waxyaabaha tusaale ahaan oo kale hadda oo kale qoraal aan soo qaato text markaan soo doorto oo kale intaan imaado text way isbedelaysaa meeshaan fiiri waxyaabo badan isbedelay meeshaan wuu isbedelay waxaa kamid ah inta waxaa ku jiro colorkii oo kale waxaa ku jiro oo kale stroke waxaa kaloo ku jiro sidoo kale stroke meesha laga weyneyn lahaa ama laga yareyn lahaa qaybahan kale dhan iyo sidoo kale meelihii paragraafka ahaa oo laga sixi lahaa ayaa ku jira. Okay marka intaas aan ka socono qaybtan waxaa la yiraahdaa iyadana control panel la yiraahdaa. waxayna fududeynaysaa hawsha intaan ka dhacaysa ayaa intan ay fududeynaysaa waxyaabihii aasaasiga oo ahaa ayaa qaybtan kor lagu soo saaraa waxaana la yiraahdaa control panel la yiraahdaa. tabs maxaa la yiraahdaa iyadan tabs waa qaybtan waxaa la yiraahdaa tabs aa la yiraahdaa iyadan. tabskan iyadana waxay qaabilsan tahay warqadan cad inta xaba inoo furan ama inta tab inoo furan inta qol inoo furan ayuu inoo sheegay. hadda hal tab inoo furan tab kale haddaan furno intuu soo galaa tab kale haddaan furno intuu soo galaa. okay qaybtan waxaa la yiraahdaa tabs inta warqada inoo furan afwan computerka ay dib iga raacay. okay qaybtan kale xigta waxaa la yiraahdaa iyadana tools aa la yiraahdaa oo bidix tools aa la yiraahdaa waa qalabkii aan ku shaqeyn doono ama tools kaan isticmaali doono markii aan isticmaalayno Adobe Illustrator. qaybtan bidix waxaa la yiraahdaa iyadana toolskan yaar waxaa la yiraahdaa iyagana binaries aa la yiraahdaa. binaries isaguna wuxuu asan qaabilsan yahay hawshii laga qaban lahaa artboardkan ama waxyaabaha design-ka aan sameyn lahayn ayuu qaabilsan yahay. waxaa inoo xig wax la yiraahdo shaashadan weyn maxaa la yiraahdaa iyadana shaashadan weyn waxaa la yiraahdaa canvas aa la yiraahdaa canvas. barashada waxaan ku jirnaa toolskan qaabkiisa kore. okay markaan ka tagno warqadan cad maxaa la yiraahdaa iyadana warqadan cad waxaa la yiraahdaa artboard. okay waxaa inoogu xig wax la yiraahdo qaybtan hoose ma soo gaabinayna cashirkan qaybtan hoose waxaa la yiraahdaa iyadana waxaa la yiraahdaa navigation bar. waxyaabo muhiim ah ku jiro waxaa kamid ah oo kale zoomka oo kale kamid ah ujeedaa zoomka oo kale kamid ah haddii aan dhahno oo kale zoomka konton ka dhig konton marka ka dhigna saas oo noqonaa zoomka. haddii aan dhahno oo kale fit on the screen shaashada la FIC waa kaasa. qaybtan idan hoose waxaa la yiraahdaa navigation bar waxaa samayn kartaa oo kale haddii aad adiga rabtid wax dhaqdhaqaajisid waa kaas oo dhaqaajin kartaa.
qaybtan kale waad tagi kartaa, kor aa u dhaqaajin kartaa, hoos aa u dhaqaajin kartaa. sidaa darteeda waxaan dhahnay qaybtan iyadana waxaa la yidhahdaa navigation part. cashirkeena labaad meeshaas uu inooga yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.